kiiska ikraam taali wuxuu ku maqayahay nabad sugid waa la ogyahay in muxuu ahay nin asaga qof asaga isdifaacay iyo qof asaga wax iska fogeynay iyo qof asaga difaac ku jiro in wax laga weydiiyo ma inta aan la socdo ikraam kiiskeeda kiis qurax loo baaray oo dawladii hore ay ku amaanan tahay ma aha marka mara gudi la bixiyay oo xeer ilaalinta iyo niisi iyo gudi la bixiyay gudiga markii la bixiyayna keeni waayeen waatii waxaan shacabka Soomaaliyeed isku qancin ay soo saareen oo xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida uu markii saxaafadda la hadlayay marka taasoo lagu qanci karo anigu iigu muuqan hore waxaa jirtay in ay niisa warqad u soo saartay oo ay tiri ikraan waxa ay u gacan gashay oo dilay madiidka ayadana anigu waa ka hadlo uma aan qancin aan ku yiri arrinta hadda soo cusboonaatay muxuu ahaa ninka la yiraahdo ninkii hore niisa حكومي فهد ياسين أقسمي نيسا وما أنت كده واجي كنتي هذا الله عن الوقن عن أي علي إقلمتها سببتها وحافي يعني هل سنة وحاول من قبل أسماء المو أنت مغنتها إن هرو شيء هذي بحكت أنت اللي إك أو هايو بارتانك لحد بلوضو حتى هورو بارتان aan ku jirnaa kuma marsiyood laakiin inuu xaayay oo hore u sheego yiraahdo hebel ay gabadha socodkeeda uu ku dambeeyay waxaan qiyaasaynaa raadkeeda noocaas inuu yahay waxa uu maanta sheegay inuu sheegay cilintii Djibouti asaga laga celiyay muxuu ahaa waa liigu xiro oo yiri waxa lagu celiyay Turkiga meesha waxaa ka jirtay muxuu ahaa waxa la yiraahdo waxaa ka jiray muxuu ahaa idaacadii TV-ya jir markii muxuu ahaa la celiyay waxaas awooday inuu saxaafadda wacdo oo yiraahdo kiiskaasaan raboodkiisa bixin lahaa saasaana sabab u ah in la celiyo noocaana sheegi lahaa in israado xataa mabalaq oo ka dhigo ma asoo Turkiga joogo markii la celiyay waxba laga fahmay inta ma dhicin ilaa xilligan oo asaga xilkii uu ka tagay rajiim cusub oo yimid in la sheego hebel la dilay hebelna waa loo ogaay xafiiska hebel ay shaqo ku doono taliiraad hatta sometime wuxuu leeyahay agaasimihi hore waxa gabadha baagmudayd maya ikraam baagmudayd ma ahayn laba bilood wadanka joogtay tababar iyaga iyo course iyaga ay u direen oo jaamacadda Oxford ay iyaga lacag ka bixiyeen ay u direen ay ka soo qalin jibisay ku soo noqotay dalkeeda waa maasan tahay xildhibaan daahir taliyaha markuu u hadlayay waaya markii uu hadlayay wuxuu sheegay sababaha Djibouti in lagu celiyo koow ay ka tahay markii uu xamar yimidna la isku dayay in airport lagu weeraro markii ay u suurta gashay in dalka uu soo galana ra'iisul wasaaraha iyo qayb dawladda kamid ah shirkii amniga loo diiday in markaa la soo fariisto intaaba waxa uu markaa justification taliye Fahad uu ka dhigay in la qarinayay kiiska Ikraan xildhibaan baa tahay ehladii Ikraan baad qayb ka ahayd baad ka tahay xildhibaane idin muuqanaysaa in ay markaa marmarsiyo ay u noqonayso hadalka Fahad uu sheegay waa mahadsan tahay aniga aragtidaydan ka hadlaa waxa weeye qofka haddii shir loo diiday haddii lagu barashar gareeyay in meel fagaare uu yimaado meel fagaare inaad ku sheegi karaa qof nool waa wax maqan kiisa soo joogo intuu saxaafadda wada hadda aniga Soomaa wax dil soo xiriirtay intuu wacdo u dhigi kara wax liigu diiday waxaas
marka ma ina dhicin islay waay hadda xilligan waxay la mid tahay qof nafta ay ka baxday ama taqwo iyo toobad laga aqbalaya oo kale taasay la mid tahay intaan ka hadla waay aqliga dadka gabadha ay ka soo jeedana ma aha mid lagu ciyaari karo xildhibaan daahir waxaan rabnaa mar uu ka hadlayay in gabadha ay ka soo jeedi aqligooda ma aha mid lagu ciyaari karo waayahay marka iska dhaaf anagaa naqaan jidka aan u marayo waay anagaa garanayno ikraam horena waa u sheegay haddana waa sheegaa ikraam nabad sugudday ku maqan tahay qaabka ay ku maqan tahay unbaa muhiima in la qeexaa waayahay xildhibaan daahir horeyaan anigoo taliya yaasiin faray la fadhiyo ayaan horey u sheegay hadda waa xildhibaane aan hore u sheegay waxaan ku yidhi haddii maanta nabad sugudda ay qariso ikraam sababta ay u dhimato ama shabaab ha ku dhimato ama gacantadeed ha ku dhimato ama tooj ha ku dhimato haddii maanta aad ka gaabsatiin oo aad qarisiin maalin aan la qarinayna ay gaari doontaa oo geedaha xataa ay hadlayin askarta maanta cabsanaysa rajiimka markuu meesha ka baxo waa hadlayin haddana waa hadli doonaa askarta soomaaliyeed kiiskan kiis qof iyo laba ku eg maaha xildhibaane maxay tahay sababta waxaan keliya kula dardaarmaya dadka kiiskan wax ka ogaay inay is ilaaliyaan oo ay taxadir badan sameeyaan looga aarsanay waayahay niisa ayaad ku eedeysay nabad sugidda sababaha dilka ay ugu dambeyn karto amaba ay u beegsan karto gabar sarkaalad ah oo taliska ka tirsan maxaa idiin soo baxay maxay tahay sababta ka dambeysa in la dilo ma aqaan kiiska baaritaan rasmi ma helin baaritaan madax bannaan ma helin marka ma garan karaayo sababta muxuu ahaa ay niiso ay ugu dhexli niiso waa ku dhexlimitay waana muxuu ahay waana qariyeen qaabka ay u qariyeen iyo qaabka ay ku dhex dhimatay anigu ma qeexi kir laakiin si kastaba ahaatee mas-uuliyadda ikraam meelay ka tirsaneed oo qoys ay u ahayd firi qof walba ninka militarigiisa qoyskiisa kan booliiskiisa iyo siskiisa iyo taliskiisa qoys u ah iidana qoyskeeda waxaa weeye niisa ahayd baagamuuddo ma ahayn 2 bilood ka hor ay Oxford soo dhamaysay jaamacad ay soo dhamaysay muxuu ahaa iyaga u diriyo lacagta ka bixiyeen markii ay timid xeel ay u dhiibteen marka niisa haday iska warqabin dhibkeeda leedahay hadda maalmo ka sii horeysay waxaa xildhibaan faraya hadlay wuxuu ku eedeeyey niisa inay ku maqan gabadha inay shabaab ku maqan tahay sababta ay shabaab ugu maqan tahay ay tahay cadaawada ay shabaab u qabto dowladda federaalka waayahay xildhibaane waxaad sidee idinka ama adiga hadda aad ku caddayn kartaa in niise ay ku maqan tahay caddaynta aad heli karto maxay tahay horta aan kala helno adiga wariyaata aan kala helno warka haye sababta faray iyo fahad hadalkooda isu qaadan waay faray ma uu sheegin maadaa ka dambeeya ma uusan dhihin ra-iisul wasaaraha ka dambeeya ma uusan dhihin hebel kalaa ka dambeeya ma uusan dhihin wuxuu ku eedeeyey si daaragti ah shabaab wuxuu sabab ugu dhigay maadaama ay nabad sugidda ka tirsan tahay cid kastoo dowladda ka tirsan la beegsanayo ay cadaawad ay u qabaan faray halkaas uu ku sababay ma sheegin qofna marka taliyaha iyo taliyayaalkii kale ee ku-xigeenadiisa yaasiin ka mid ahaa waxaa muuqatay inayna ka shirin oo hadal oo ay ku midaysan yihiin ayna jirin marka ma baalqa waaye arrintan niisay ku maqan tahay caddayna xildhibaan waa maasanta caddaynta maxay tahay caddaynta niise aad ku eedeysay hadda ma caddaynaad heli kartaa xildhibaan hadda fiiri qoftaa xaggee ku maqan tahay ii sheeg shabaab way diideen waa la ogyahay aniga horeyaan uga hadlay markay warqadda ay soo saarayeen ayaan ka hadlay fiiri shabaabka aad arkayso qof walba familia u joogo dadaa u joogo war gabadhaasaa maqana keena madaxda ugu sarraysaa lala hadli karaa ma garatade way diideen shabaab waxay dhaheen anaga gabadhaan ma qabno way kufaani lahaayeen sargaalad sare oo Oxford soo baxday oo security soo baratay oo qiimo badan ayaan dilnay dhihi lahaayeen
marka ma rumaysan karno hadallada deelqaaf kale oo iska hor imaadayo ma qaadan karno waayahay aqliga familka gabadhan ka soo jeeda laguma cayaari karo xildhibaan daahir annaga hadda hebelaa dili dhihi mayno hebelaa aan u haysanaa dhihi mayno laakiin waa la baaraya geedaha hadlaaya askarti rajiimka hadda jira markiis meesha ka baxo geedaha hadlaaya waayahay haddii ay shabaab haddii ay iska beeniyeen waay nimanka hadda xilka qabsaday waxaan leeyahay kiiska lidii waa kiiskii igraad maanta access waxaad u haysatiin inaad kiiskaas horta hal qof kuma eko haddii tooja ay ku dhimatay hadday shabaab ku dhimatay baaritaan inaad baari kartiin oo aad soo saari kartiin aad access u haysatiin laakiin xildhibaane laba dhinac oo iska soo horjeeda isku eedeysay niisadii hore ee Fahad uu hogaaminayay wuxuu yiri waxa ka dambeeyay ra'iisul wasaaraha iyo tiimkaas iyo niisada hadda cusub ninka madaxda u ah iyagana waa dhinac kale u gadiyeen sidee marka xildhibaan adiga ku dhahday niisadii hore ka dambeeysa maadaama rag kale ay ku gadiyeen fiiri niisadii hore inay ka dambeeysan ku sheega waxaan ku yiri gabadha family iyo qoysbu waxa u ahay oo ay xeradooda dhex deganeed oo ay ka tirsaneed niisa taliskeedana waalid u ahay inay sheegaan waaye ilmahaaga meeshii ay ku maqan yihiin inay si dhaba iyoon kala hadlin inay u sheegaan marka iska dhaaf waxaas looma baahno nimanka hadda ay qabsadeen ma lagu eedayn karo nin hadda qabsaday haddii lagu eedaynayana iyagoo mucaarad ah oo ay dhibaato geysteen maalintaasaa lagu maxkamadayn lahaa oo lagu sheegi lahay oo magacyada hadda sida loo sheegi lahay marka annaga maogtahay dad ilaahay sumcad iyo caqligaas u yeelayaanahay muxuu ahay kiiskan in nagala siyaasadeeyo horyaa noogala siyaasadeeyey ama mucaarad ha naga siyaasadeeyo ama tiimka niisi jooga naga siyaasadeeyo horyaa naga siyaasadeeyo kiiskan si dhabla oo xaqiiqa ayaa loo baaraa waa hagaag xildhibaan daahir waxaan rabaa qaybihii ugu dambeeyaan soo gaaray taliyaha mar uu hadlayay Fahad taliyihii hore inaysa wuxuu sheegay in uusan jirin cid kiiskaas lala wadaagay hore waad u hadashay xildhibaan waxaad sheegtay in xarunta niisa aad tagtay nabad sugidda lagu tusay gaariga sida uu u baxay qaab noocaas hore u sheegtay sidee isku waafaqi kartaa hadalka Fahad ee ah cidna lama wadaagin gaariga hebel soo kaxeeyay wasiir ku-xigeenka al-cadaala ma sala halka karataaya dilay oo waxa lagu dilay toro adigana horaad u sheegtay in xarunta tagtay lagu yeeray sarkaal aad israacdeen gaarigii iqaabkii lagu tusay iswaafaji xildhibaan daahir waa manasan tahay baabuurka aniga lii tusay waxaa lahaa nin la yiraahda wadnaqabad wuxuu yiri gabadha deersaaneer baabuurkii baarkinkayga halkaana uu yiri waa wareystay markii kadib xanta ay soo baxday baabuur gabadha lagu qaaday si daba aniga iyo taliye Yaasiin Farey aan u wareysan wuxuu noo sheegay in gabadha isaga ay dirisaayeen baabuurkiisana baarkinkiisa halkaana uu yiri marka I don't know aniga fiiri aniga xariiraleynimi dimi baaranami kali ahaan gabadha ahalkeeda inaan ahay ayaa leeyahay intaasana saxaafadan u sheeg gaariga xaguu ka baxay marka beesha laga qaaday gaariga ilaa xageed aragtay ilaa xaguu gaariga aniga liitusi wuxuu yiri aniga maba qaadan buwaakana markaan baabuurka taagay maxaa taagan yahay yiri wuxuu yiri telefoonaan ku hadlay marka ma qaadan yiri aniga laakiin parkingkayga meeshaan uu yiri magaratay marka baabuurkaas iyo meesha lagi hadda waxa loo al-cadaala qaad marka waxa soo dhan waxa oo xaqiiqada ku salaysan dhammaan waxa xaqiiqada ku salaysan ma gabadhan kiiskeeda wuxuu u baahan yahay baaritaan dhaba marka rajimkii hore waqtigiisa gabadhan muxuu ahay oo ay noqotay dibana maqan ayay noqotay waxa la rabaa waxa weeye rajimkii hadii ay cadeyn waayeen meesha ay ku maqan tahay hadday cadeyn waayeen hadday kala hadleen rajimka hadda jira la rabaa inay baaritaan dhab ku sameeyaan ay soo saaraan marka maxaa ku muuqanay gabadha maxamar guriga niisa lagu dhex dilay mise in xamar lagala dhex baxay banaanka lagu dilaa ku muuqanaysa xildhibaan ma xarunta abar qadiija lagu dhex ma garanayo anigu ma garan karo meel lagu dili haddaan ogaan karo ama aan xataa tuunkeeda qabi karo meel hebel lagu dilo xawaashaasi ku aasantahay leeyahay laakiin waxaan leeyahay kiiskaas hal qof iyo laba qof kiis ay soo afjarayeen maaha
kiiskan askarta wax ka og ilaahay ha ka baqaano rejiimkii haddii ay ka baqayeen meesha uu ka baxay ha hadlaano ha dhahaano qabrigeeda waa kan meeshaana lagu dili sidaana loo dil haddii shabaab dilna haddaa ha ku raacaano shabaabaa dili meeshaasaa lagala baxa ha yidhaahdeen laakiin aamusnaan haddii maanta xaqa walaasha aad ka aamusid berrito xaqaaga laga aamusaya marka kiiskana maaha kiis hal qof iyo laba qof ay soo afjareen maaha taasaan ogaay waxaa hubaala kiiskan inuu isfurfuri doono caddaynteedana ay imaan doonto muxuu ahaa fiir guddiyaa loo saaray ra-iisul wasaaraha guddi uu saaray guddigii ra-iisul wasaaraha ay saareen xeer ilaaliya oo hadlaaya waad aragtay shabaabaa qaatay gabadhaas waxay ahayd mar ay isu soo dhawaasho ay jirtay fiiri isu soo dhawaasho waxaa jirtay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafkii dhacdada ka baxayo ra-iisul wasaaraha uu qadar tagay uu soo noq kadib ay ahayd marka waxaasoo dhan wax siyaasadaysanaan u arkaa anigu saacaddan maaha waxa indhaha liiga saari karo waxaasoo dhan wax ii qormaaya maaha fiir markii aad wax qoranaysa tenniska kuu qormaaya oo digital kuu galaya oo qormaaya xarafka qormaaya hala qoran waxaasoo dhan wax siyaasadaysan waaye wax kasoo qaad male gabadhan kiiskeeda waa la caddayn waaye waa la baari waaye dowladda hadda timidaan ka rabnaa inay baarto oo ay caddayso welilahi alxamdu hadda rajiimkii hore waxaa isku eedaynaa mucaarad soo maa mucaaradka markaas joogo hadda maanta xeelka qabsada iyagaa la rabaa marka inay baaraan ay si dhaba u soo saaraan hadday soo saari waayaan oo ay baari waayaan oo iska dabawareegaan sidaan ay u noqoto hubaati waxaa ah beesha oo ay ka dhalatay ikraam waxay go-aan ay kala ay qaadan doonaan waayo dad aqoon-yahaninaa ku jiro dad indheergardaa ku jiro dad wax fahansanaa ku jiro waxaa weeye dad aqligooda lagu dheedheeli karo ma ah ha iska dhaafaan dadkan malawaanka waxyaabaha ilaa iyo hadda ay siyaasadaynayiin oo ay isku tuurtuurayiin iska dhaafaan xataa weriyaashu oo noocan wax u wareysanaya ha iska daayaan aniga xaqiiqda dhabteeda waxaa weeye inaan kiiskan aan la siyaasadayn yaad ka hadlaysaa markaad leedahay weriyaashidan wax wareysanaya xildhibaane sideedaba kiiska ikraam taali wuxuu ku maqan yahay nabad sugid waa la og yahay in muxuu ahay nin asaga qof asaga isdifaacayo iyo qof asaga wax iska fogeynayo iyo qof asaga difaaca ku jiro in wax laga weydiiyo maaha waa in baaritaan dhaba oo ka madax bannaan waa gabagabaynaya su-aasha ugu dambeysa xildhibaane waxaa la leeyahay ama la is oran karaa xildhibaan daahir waxa uu taageero u ahaa rejiimkii hore nabad iyo nolol xilligii ay joogeen xildhibaane maxaad si cada u dhihi weysay niisa ayaa ay ku maqan tahay ikraan marka hadda rejiimku halkaa ka baxay aad xildhibaane saad leedahay waan iri wareysigeygii ugu dambeeyey intayna ii ahbin gabadha walaashay oo hooyadeeda intayna ii ahbin wareysigeygii ugu dambeeyey dharka cagaaran aan wato fiiri adigaba arag waxaan leeyahay warqadda niisa ay soo baxday kuma kalsoonin muxuu ahay arrin aan ku qaadan karnana ma aha gabadhaas niisa ay ku dhex maqan tahay niisa arrinteeda meel ha soo saar intaasaan iri subaxdiina walaashay yabinay markaan arkay waan ka gaabsaday hadda maanta allah i wareysto hoymuyo diyaarba uma aheen inaan si hoos ugu shaqeeyo kiiskaas oo aan iraahdo guddi ha loo saaro baaritaan la sameeyo oo aan kala shaqeeyo dowladda markaas joogta moogiye inaan ka hadla ma rabin marka saaxib midda aad sheegayso leedahay rejiimkaas hala jirso rejiimka igoo joogaan sheegaya anig igoo joogaan sheegaya dhaliishood no inaan cidna ka baqayo marka hadda madhawooyi rejiimkaasa aan koolaysintahay madhawooyi niisa ayay gabadha ka tirsaneed ayagaa la rabaa gabadhaas arrinteeda inay af u bixiyaan shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.